نبا هل كان تيرارك مساجد كميت كميت إيجو جبت وحينا هيد مالمه عيد هذا وجودا بيس أيام التشريقي مركو مساجد كصوق لي صلاة المغرب كوحة كدم من أفرتن دقيقة إلى كنتن دقيقة ميلهاس ألام يربو حنبار سنة أو بورسة كتيرتي هل كانوا صفقة هراب ودكتي وبحي وسوي سقعتي مركو صلى عبتي وإركي وإيمد وإسلامي وإسوريسا حلقة مساجد تعد ساسي بتشوبي ضد يربى تشوبي شاكري وحا صوق لي وأرموي ويدينا هيي شقادة أو كشقية إيو متقانا سؤالا نوعاسة بورصة أنا وحيري وحا إيتها الدكان وحا كتشير على بير أو ساس لوكال تشيتشيد أو قفكو كتشي معصدو بيرها يركا ولا تشيتشيد هاي أو طريق الله دقدقو أيا بورصة أنا كتشير دكان كعدة عن كبيلا أنت وين مركز ويدي عرور يرير يا ملاي صدح عرورة يهويلد بقى قري إيد جنبي محاك صوبها بعدان بورصة يرتاع هانتي ده أدوس محيط أنت هانتي ده عن لا يهود نوحي موبايل كي كتيرتا كونتون دولار ويكي يرتاع هانتي ده عاو هذا أنت اللي قد نحلها يو كونتون دولار ويكي يرتاع بهلا أنا قاعد وحي يري waxay joogan $4 meelahaas $2 $3 wax noocaas ay joogan afar xabaan soo qaada maalinkii ama 5 xabo meelahaana la wareegaa dariiqadan la wareegaa dadka raba inay xoogaa jimicsi ay sameeyaan ayaa iga iibsada haddaan 3 ka soo bixiyo mar 5 baan ku gataa haddaan ku gato 6 haddaan ku helo waa ku gataa habeenkii waxaan ciidayda oo la hoydaa xoogaa iyo $2 oo faa'iido ah quraac baan samaysanaa cashaan samaysanaa qadaan samaysanaa guriga aan deganahay waa kilokeeda waa iska bixiyaa hantida reerkaas aan ku maamulo oo dhan $50 ma dhamo tusaale wuxuu yiri maantay saaka markaan soo baxo soo qaaday ilaa saako dhan baan wareegahay wax iga gatawan waa casirkii ma masaajidka jamaacada waxa uga tukaday مساجد كلا مغرب كيو أنا لجارين بقى واحد يقولي مركب مغرب ككور مساجد كإسكجل إسكسرنا يسوق قرآن كاج إسك آخر الصو علامة هذا إسكجل يسمى دام أنا وحبة سوهيلي مركب هل كان جد كاسون برهاي أيها قف جد طلب حبه وحنكفى إذا إلى $9 ملها سفيدان كيلو بيل كنا عدة يجب حنا $1 $4 كمان بدل نيجاز وحا كموقته فرحدي قناعه maxaa ka shaqay jirta ka hor baan ku wixii shaqo fiican oo mushaar aan ka qaadanaya haysto waana ka tagay oo maxay ahayd mushaar baa meel ka qaadanayay aan qolo la shaqaynayay waxay yiraahdeen salaada jamaacada ma aadi kartid shaqadan lagama tagi karo jamaacada anuna waxaan irigu yiri 5 salaadood masaajidka jamaacada inaan ku tukadaan rabaa وان حريا وسوتو كنيا ماذا يراد أنا فربنان مشارنا قادنا يحل جاس في عن أيا وحن كدورت أنا فربنان إن كتجه سي أي يجسور تجشوا إن أبوره نلل المها يجو يكون نولادان جماعتنا حل جاس ربنا هليلكم وحكى أنا هيدين بان وحن بالله بألعاب تاير يركعنا وريتشي جماعة ما ضافتوي بيل كيجينا وهايستا قناعنا وقبا هانتيدنا كنت ندور ما ضافت اسمه بلو في سمر إلهي قفكو خير للضوانه وحكو أرزاق يا قناعة عظيمة قفكو هدو قناعة إلهي أوصيه الحمد لله إذا كبضنا يسلساكيس هدي إلهي قناعة كقادنا والول والبهار إيا دغنشو دغننا هيو حوله أو أركي إني كوي رادين عذر كاسا كدعها يهم يا ولول يا والبهار بكدعها مركاسو مرول بوحو هابنا يا
waxa uu hayo uma muuqdaan wax ka sareeya sidoo ku keeni lahaa oo ka badan ayuu waxa weeyaan habeen iyo maalin ku mashquulahay waxa dhintay oo xanuunsanahay oo sakaraadayay saxaabada nabiga nin kamida Salman waxa soo booqday saxaabiga Sacad markaas wuxuu arkay Salman saxaabigii ah oo ilmeynayo booyahaya geeridiina ay ku soo xaadirtay markaas uu maxaa la booyaysaa nabi maxamed baa la saaxiibta miyaadan ka ahayn oo kaas aadan ahayn amaanta ilaahay uu siiyay yaqiimihi uu lahaaba wax ka xasuusiyay markaas wuxuu ku yiri Salman laba arimood baa u booyi maayo حبا للدنيا وكراهية للآخرة محبة هي الدنيا جعيل أن أقبه والدنيا كتجيسة داري الدنيا كتجيسة أبوي مهيو نعيد عن آخرة نعها ينا لبوي مهيو جريد عن كعرر هيو ولكن وحن لبوي يا الله المين يا وح رسول كن ولب الله مي أو سيد أهايين عن كبد الني ayaan la ilmeynaya oo ka baqaya oo maxay ahayd bii waxa nabigu in kala ballamay markaas uu nabigu wuxuu nagu yiri qofkiin adduunyada waxa uu ku leeyahay oo hanti ah ha ahaato qofka wixiisu kazaadi raakib qofka musaafirka oo socotada ah sahaydiisa iyo zaadkiisa oo kale yeesha wax ka badan iska daayi waxa ku didaashaan inaad yeelataan waxa weeyaan sahayda iyo safarka aakhire waxaad ku gaartaan waxaan ka cabsanahayaa inaan ka badiyay xoolihii aan shaqeeyay uu dhint markaas ay bal xoolihii uu ka cabsanaya hala tiro koob 22 dirham bay noqdeen 22 dirham wax markaa hadii la fiirsho laba maalmood iyo 10 bari wax la mid ah noloshooda aan dhaafsiisnay ayuba hantida dhan oo ka cabaadahayo la cabsanahayo oo la ilmeynayo ay noqoto wuxuu isleeyahay arma ziyaado samaysay oo dardarankii aad jabisay ayadoo kasabka xalaasha iyo maalka xalaasha in la shaqeeyo ilaahay cibaadadiisa iyo khayrkiisa loo kaalmaysto wadooyinka khayrka lagu bixiyo ay wanaagsan tahay ayaan waxaana inaba caadi ahayn qofku inay noloshiisu kafaayadaas ay ahaato inay ugu fadli badan tahay walidaalika bay ahlu cilmigu waxay yiraahdeen dadku saddex qaybood weey qof hanti badan ah oo qani ah iyo qof aan waxba hayn oo faqiir ah iyo qof darajadii nabigu ilaahay uu weydiistay oo quudkiisu kafaaf iyo nolol ku filan kaliya uu yahay ah kaasana ugu fadli badan dhexda waana midka nabigu ilaahay weydiistay subhanahu wa ta'ala nabigu ilaahay gaajada iyo faqriga ilaahay waa ka bangal ghaninimana ilaahay mawna weydiisan meesha uu weydiistay baa waxay tahay meesha ugu qaalisan ugu qiimaha badan hadii adduunyada wax yar kaaga soo aadaan ku qanac waxaadna fiirisaa dadkii adduunyada hanti sameeyay maxay kala tageen ma waxaan karfantooda ahayn bay ka qaadeen waxba ka bayna qaadeen qanaacadu marka waa kanzun cadiim la yafna kayd weyn oo kanzi ah oo aan dhamaanahayn weey ولذلك با عمر بن الخطاب وحده جري الطمع فقر واليأس غنى طمع iyo mamanaanta adduunyada la raadiyo faraha badan faqri weey yaasiga laga quusto dadka gacantooda waxa ku jira asaguna waa qaninimo oo qofku dadka gacantooda waxa ku jira inuu ka quusto iska daayo wuxuu noqonayaa qani marka isaga ah qaninimo ayuu ku helayo